علي عمر iyo dhamaan horweynada TV-ga Shabeelle TV aad baan idinku mahadcelinayaa fursadan qiimaha badan aad isiiseen haddaan su'aashaada u gudbo soo noqoshada ama dib u soo noqoshada ex gudoomiye Noobadaareed magaalada Garowe oo sida aad hadalku u dhigtay ama u sheegtay ama ummadda Soomaaliyeed ummadda reer Puntland ay og yihiin in Garowe lagaga saaray xabad isla marhaantaasna iyada oo meyd iyo dhaawac yaalo mooshinkiisa la qaaday jagadii gudoominimada saa looga xayuubiyay sida uu yiri dadku waa dagaali karaan waa heshiin karaan qaab siyaasi ah ayuu u hadlay laakiin wararku waxa ay sheegayaan maadaama Saciid Cabdullaahi Deni uu ku jiro sanadkiisii ugu dambeeyay muddaxireedkiisii hadeerna uusan haysan garab weyn oo siyaasadeed in uu isdhaqayo ama ismeerayo oo ay muuqato in uu xawaasha ka soo saarayo dadkii uu siyaasadda ku aasay oo hadeer xawaasha uu ka soo qufayo siyaasiyan bay u muuqataa arintaas marka waa arimo isuwan oo runtii aan la oran karin waa rag dagaalay oo heshiiyay aan lagu soo koobi karin laakiin waa arin inta ka ballaaran yaan aaminsanahay وياك عمر محو كوقن عاي عبد الحكيم Noobadaareed gudoomiye hore muxuu ku qancay oo hadda Garowe ugu soo noqday waxa waliba waxaan hadalkiisa ka dhax muuqanaysay marka dhageysato in aad ugu qanacsanaa siyaasadda xukuumadda Puntland hadda ay ku soconayso marka muxuu ku qancay Cabdi Xakiin sida ay kula tahay aad baan waasata caliyo horta qofka mar hadduu siyaasi yahay waa sida xilli roobaadka oo kale weeyaan waqti aan la filayn iyo roobku soo daa mararka qaar runtii marka damaca qofka siyaasiga ah ma ahan mid hal meel ku xiran ma ahan taasa waxay sabab u tahay qofkii aad ku ogeyd isagoo meel kala taagan haddana meel kale aad ku aragto laakiin arinta Noobadaarood waxay arin saameyn ku yeelatay guud ahaan siyaasadda Puntland iyo awood qaybsiga Puntland awood qaybsiga saddex waxyaalood baa si awood qaybsi loo qaybsadaa ama traditionalka ahayd arintaas marka khalkhal badan bay ku keentay amniga Puntland iyo jiritaanka Puntland dhibaato badan bay ku keentay runtii marka dhoobo muddo badan iyo wuxuu dhaliilayay Cabdullaahi Deni waad ogeyd oo meelo badan mowqifyo badan siyaabo badan ilaa heer uu gaaray xitaa inuu markuu sigtay YouTube inuu furto wax u dhow oo uu ka hadli jiray oo arrimaha Deni iyo mucaaradnimadiisa isagoo marar badan eedeyn jiray kooxdii ku daabanaan jiray oo arjal la oran jiray isagoo markaas wuxuu aaminsanaa Deni go'aan uu leeyahay kuma aadan bixin nimankii saaxiibadiisa go'aan ay leeyihiin yaad ku baxday buu aaminsanaa marka taas waxay keentay inuu hadda madaxweynuhu uu urursanayo koox cusub oo kulay magac cusub la bixi doonta maadaama kooxda hore meesha ay ka waayahay ma hadalkaaga ma waxa uu dhigan yahay maadaama isqabsi soo kala dhaxgalay Xasan Shire iyo tiimkii kale ee Aranjan iyo Saciid Cabdullaahi Deni in dhoobo uu ka faa'iideysanayo oo isqabsigaas iyo kala tagaas Aranjan iyo Saciid isaga uu hadda soo xigsanayo ma sidaas ba dabcan ha dhoobo wuxuu ahaa political victim wax loo yaqaan ama dhibano siyaasadeed uu ahaa systemkii Deni dhibano siyaasadeed uu ahaa systemkii Deni hadeerna fursadda meesha ka muuqatay yaa ah cadowgaaga cadowgiisa waa saaxiibka sida ay Soomaalidu ay tiraahdo hagaag wararka waxa kale ay sheegayaan in isku shaandhayn la filayo golaha wasiirada Saciid Cabdullaahi Deni ma muuqanaysaa in fursaddaas Cabdi Xakiin Dhoobo uu ka soo dhex muuqan karo dabcan kulay wararku waxay sheegayaan in wasiir ka mid ah wasiirada Puntland loo magacaabi doono gaar ahaan nidaam la yiraahdo waa taqaanaa nidaamka Soomaaliya replacement-ga la yiraahdo qofka qof isku qabiil yahay yaa lagu bedelaa oo awood qaybsiga yaa marka dabcan refashal uu sameyn doona Deni refashalkaas oo ah midka uu ka soo dhex muuqan doono Noobadaarood ganacsigii uu ku lahaa meesha la yiraahdo Turkigana kulay uu soo xiray oo ka soo guuray san wararku ku helay
taas marka xaqiijinaysaa in guaranteed ah in jago wasiirnimo ama wax u dhigma inuu kusoo laabtay oo political negotiation wax la yidhaahdo wadahadal siyaasadeed ama heshiis siyaasadeed inuu kusoo laabtay taasoo ah arrinta hadda taagan oo ah kooxdii hore oo deni ay saaxiibadii ahaayeen oo isagu suu madaxweynuhu afkiisa ku sheegay yiri qol madow baan ku xirnaan jiray haddeer ummadda soo dhex galay inuu ka faa'iideysanayo marka labada qolo dhexdooda inuu hadda opportunity ama fursad siyaasadeed inuu ka dhacay yaa muuqata sanadka waa sanadkii ugu dambeeyay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni saansaanta muuqanaysa doorasho in ay ka qabsoonto Puntland xagee la eg tahay nisbada ama saadaasha aad rajaynaysaan in doorasho Puntland ay ka qabsoon wallahi cali horta caliyow doorashada Puntland maxaa la yiraahdaa January ku aadan 2024 waa muqadas waana lama taabtaan waana waxyaalaha dhidibada u ah jiritaanka Puntland oo aan marnaba shaki gelin taas waa khad cad aan laga gudbi karin lagu kale wali mucaarad baan nahay oo dowladda hadda xukuumadda Deni ama refashal isugu ha samaysto ama wasiiradiisa hore ha u joogay anaga tiimkeeni waagii soo dhisay oo dhismihiisa qayb ka ahayn oo raggu waa kala yihiin wali anaga mowqifkeeni waxaan taaganahay ah jiritaanka Puntland iyo nabadgelyadeedu waxay ay ku suntan tahay wax weeyaan 8 January 2024 haddii taa shaki la geliyana jiritaanka Puntland shaki weyn yaa geli doona marka taas baryo ma lahan warar hadda waxay sheegayaan hoose wasiirka arrimaha gudaha Juxa iyo Deni haddeer inay xoogaa aad isugu muuqdeen oo ay sida hore isu ahayn yaa warar hoose aan helay ay ii sheegayaan taasoo caddaynaysa waa ninkii halhayskan la yidhahda geedha caana leh keenay buu ahaa geedigii caanaha lahaa yacni waxyaalo badan baa dib uga soo noqdayoo ciddii geedigii waday oo dareewalka ahayd ama sahanka waday yaa shaki laga muujiyey baa muuqata ma garata waa yahay waa mahadsan tahay marka sidee xalku noqon karaa haddii madaxweyne Saciid wararka adigaba sidaad ka dhawaajisay qaarna ay sheegayaan in muddo kordhin 2 sano ah xukuumadda Puntland loo sameeyo ama Saciid uu sameysto xildhibaanada golaha wakiiladana wata ay ku qanacsan yihiin siyaasadda madaxweyne Saciid kooxdii ay ishayeen oo doorashadii kalaytanka ahayd oo Xasan Shire kalkiisa ay ahayd halka waa uu ka baxay marka 2 sano ma umaleynaysaa in madaxweyne Saciid uu la soo shirtay doono dhawaan maadaama gabagabadii la joogo cali aad baa mahadsan tahay horta warar hoose way sheegayaan nuxnuxda way jirtaa oo Muuse bixiga aan dariska nahay waa dhaweyd uu waqti uu ku darsaday talada Somaliland sidoo kale lafta gareen waati la yiri isna waqti uu ku darsaday sidoo kale madaxda maamul goboleedka barkoodna way ku darsadeen muddo kororsiga waxaana la socotaa in muddo kororsigaasi aad lagula dagaalamay xukuumaddii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wadanka dhan uu khalkhal u galay marka taa marka waxay cadeynaysaa wixii shalay sharci ahaan aad ku dagaalamaysa inaad maanta aad u sharciyeysatid marnaba macquul ma noqonayso Puntland markii loo yimaado way ka duwan tahay deegaanada kale Somaliland iyo qaybaha kale ee maamul goboleedka ka duwan tahay Puntland waxa kaliya oo macruuf ah oo qof walba uu og yahay 8 January marnaba shaki lifaaqaas oo awood u siinaya odayaasha odayaal dhaqameedka isimada iyo marjaca dhisitaanka Puntland in ay talada ayaga ugu dambeysay ay leeyihiin ay soo xulayaan baarlamaanka soo socdo oo 2024 bedeli doona kuwan hadda beesha jooga waxa kaliya oo Deni hadda uu doonayo muddo kororsi waxba lagu sharciyeystaa waxa uu doonayo muddo kororsi madaxweynuhu ku sharciyeysta waa barnaamijkan halka qof iyo halka cod loogu yeeray oo ah barnaamijka doorashooyinka golaha deegaanka oo runtii xisbiyadina ay ururadina ay ayaan dhaweyd aad uga hadleen oo cambaareen badan ay u soo jeediyeen madaxweynaha oo ay arrimo badan oo ay
كدجين وخطر وبرنامج كان سوى أنت وهذا اللي قد قديه كريم روما بهالمال اللي قمر السن إن مدحونه مركا مدحونها كحجة ما دام دور الشدي أي سنة هاي مد برلمانتري إلا برسنسيال أنا هاي هدي وحي قرد ديجان أي تهاي مدحونها قدم بيا قبل كرا مركا برنامج كل الدنيا اللي وحلا على يوم متكروسيا وبرنامج كان هل قفرك عضو الشيء قلها ديجان كا صدنيو تضبط دقمو أي بنتلان كقوة هدي أنا الخلدرين marka anaga mucaarad ahaan waan ka digeynaa waxaan leenahay muddo marnaba macquul ma ahan mana la aqbali karo doorashadana waqtigeeda ku dhacdo arrimaha kale horumarintaana madaxweyne kasta waajib baa saaran madaxweynuhu horaha u wado markii waqtigiisa la gaarana doorashadii lifaaqii dib ha loogu laabto oo 66 xildhibaan oo ay odayaasha soo xuleeyeen dib loogu laabto waa tahay Umar talaaba la qaaday madaxweyne Saciid talaabo qaaday ahayd in sida hadda ka dhawaajisay ba golaha deegaanka ama ba qofkii cod talaabooyinka loo qaaday deegaanada doorasho ee ka dhacdo xisbiyada lagu kalaytamo hadii saddex degmo oo ay ka dhacday doorashadii xisbiyada inkastoo lagu kala adkaaday sida muuqanaysay haddana hadii talaabadaas la sii qaado oo deegaanada Puntland oo dhan laga wada simo Saciidna muddadaas kooban hadii uu shaqada ku qaban karo labada sano waqti kordhin loo sameeyo Puntlandna wixii ka bilowda dawladda Saciid ay noqoto mid doorasho qof iyo cod deegaanadan xisbiyada ay ka soo galaan maxaa ku jaban wallahi ni horta su'aashaada waa su'aal aad u fiican weey arintaas waxa hore looga diiday xukuumadda farmaajo yaa hore looga diiday haddii ay fududahay in iska socon karno oo ay wax fudud tahay barnaamijkaas yani xukuumadda farmaajo waa ogeyn meeshii la isla maray iyo caqabadihii ka dhashay waan ogeyn niyaho qofka horta hadduu qofku wax fiican qabanayo waa arrin wanaagsan laakiin arrimaha taagan baa waxay yihiin hadda saddexda degmo aad ka dhawaajisay boob badan baa ka dhacay hadda ayl oo kale degmada ayl xisbiga madaxweynaha ayaa boobay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka barqacad iyo boobay halka labada degmo kale dee wuu boobi lahaa laakiin taas waxa ka hor istaagtay in gudoomiyaha guddiga doorashooyinka hore maxaa la yiraahdaa in uu jagadiisa ku waayay shaqadiisa inuu ku waayay oo ahayd iyo taliye ciidanka booliska Cabdiyare oo ahayd arrimo la xiriirtay in uu dawladda ay boobtay iyo doonaysay marka khatarta boob inuu jiri karo yani waa wax macquul ah arinta kale xigta waxay tahay ururo aan naf lahayn ururo aan isku filnayn dhaqaale ahaan yaa jira ururadaas yaa dawladdu doonaysa inay maalgeliso oo si coalition ama inay iyadoo si qaab taxaalufa inay codadku ugu soo ururiyaan kadibna aakhirka yiraahdaan xisbiga dawladdan ku biirnay marka maadaama dawladda gacanta ku haysa dhaqaalihii awoodii tarasabaris badan uu jirin marka khatarta aad bay u badan tahay lamana aamini waa soo gabagabeynayna doorashadaasna waa laga dhul sugayaa xilliga waqtiga Saciid marka uu soo gabagaboobo inkastoo wararka isgarbinaya ay sheegayaan in hadda awoodii xooganayd laga dhimay guddiga EBEC ee doorashooyinka Puntland dhinaca kale aan ka fiirino dawladdan cusub ee madaxweyne Xasan iyo Saciid Cabdullaahi Dani Puntland musharax uu ahaa waa tii uu ku hungoobay doorashadii dib ugu laabtay sidee kula muuqanaysaa xaaladda siyaasadeed Puntland iyo mid xamar wallahi min diyaha la sulisanaya yani waxaan kaaga wadaa wadaweed Saciid ilaa intii doorashada dhacday iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xiriirkooda ma fiicneen mugdi badan baana soo kala dhex galay ilaa heer ay gaadhay hadeer in lafta gareen oo koonfur galbeed madaxweynaha koonfur galbeed uu garow yimi taasoo macnaheedu tahay in taxaaluf siyaasadeed ay ka dhan dowladda federaalka in Puntland iyo Saciid Cabdullaahi Dani inuu hadda diyaarinayo maadaama uu ku hungoobay dagaalkii xamar uu ku galay xukuumaddii hore oo farmaajana uu wax la taaban karo uu ka keenin nimankii meesha bedel filada odayaasha meesha yimida uu soo waji fiican kala kulmin dhaqaale badanna meesha uu kaga baaba'een maxaa la yiraahdaa talo badanna laga gelin
golihii wasiirada iyo wax badan oo la xiriiray Puntland arrimihii Puntland marka dagaal xoogan iyo hadda uu Puntland gelinayaa waana waxyaalaha curyaamin doona hadeer in wax badan uu ku naaloonayo inuu hore u sii wado oo ummadda reer Puntland uu isaga dhaqo يعني وحي صدح السنة يبركي دجالكي وكرجري حكومة هورة وحنا وستككيني حتى إنه عندنا فيس لواد بدعوه والدجال عصبة وفضل الكع إنه مدري المثل أن يدين مثلاً سوود استمرار يمكريه وقايبه دنبايان سو غاري عمر حاجي كشويتو arrimaha siyaasadda Puntland ka falanqooda garoway ku sugan waxayna la falanqeynayeen soo laabashada dib siyaasadda Puntland ugu soo noqday gudoomiyihii golaha wakiilada Puntland Cabdixakiin Doobadaareed iyo waliba doorashada sanadka ugu dambeeyay ee lagu jiro Puntland xiriirka ka dhaxeeya dawladda dhexe iyo waliba dawladda Puntland waa mahadsantahay Cumar aad baa mahadsantahay